kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda. qodobada aad wararkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid ah milatariga Kenya oo la wareegay ammaanka madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, Somaliland oo Hargeysa ku xirtay ajaanib u dhashay Imaaraadka iyo hal sabab oo arrintaas ka dambeysay. arrimo cusub oo ku soo kordhaya sababtii xilka looga qaaday xeer ilaaliyihii qaranka Dr. Axmed Cali Daahir. faahfaahin dheeraad ah ayaa idinla wadaagi doonaa. ciidamadii ugu badnaa oo lagu daadiyey Dhuusamareeb iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo amar cusub ku soo rogtay ahlu sunna markaan xaalka ayaa ku xumaaday, iyo isku day lagu dili lahaa bin Salmaan oo horseeday dilka ilaaliyihii gaarka ahaa ee Boqor Salmaan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeena ku daawan doontaan saaxiibayaal. inta aanan guda gelin ka hor faahfaahinta wararkeena, daawada waxaa naga xasuusinaa haddii aad naga cusub tahay, sabskreib saar janalkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee halkan aan ku soo gudbinno. haatan aan ku bilowno faahfaahinta wararkaas. ciidamada milatariga Kenya ayaa la wareegay ammaanka madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa dhowaan loo diiday inuu gudaha u galo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo, waxayna taas keentay inuu galo gudaha Kenya gaar ahaan magaalada Mandera. maamulada degmooyinka Doolow, Luuq iyo Beled Xaawo ayaa sheegay inay ka baxeen maamulka Jubbaland oo horey u hoos tagayeen, waxayna maamuladan sheegeen inay hoos tagaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. saraakiisha ciidamada iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ayaana madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo gobolkaas ka soo jeeda u diiday inuu gudaha u soo galo lana kulmo. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in ammaanka madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo maalmahan ku sugan magaalada Mandera la wareegeen ciidamo ka tirsan milatariga Kenya. waxa uu qoray wargeyska in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland markii uu ku guuldareystay inuu galo degmooyinka gobolka Gedo uu degay hotel ku yaala Mandera, halkaas oo ay ku ilaalinayaan ciidamo ka tirsan milatariga Kenya. wargeyska ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan milatariga Kenya ka soo xigteen in Maxamuud Sayid Aadan degmada Beled Xaawo iyo degmooyin kale inuu tago ay u diideen ciidamada Itoobiya. ciidamo badan oo horey uga amar qaadan jiray maamulka Jubbaland ayaa dhowaan ku biiray ciidanka milatariga ee jooga qaybo ka mid ah gobolka Gedo. maamulada degmooyinka gobolka Gedo ayaa sidoo kale ka soo horjeestay maamulka Jubbaland. wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in gobolka Gedo ka bilowday diiwaangelinta ciidamo ka soo goostay maamulka Jubbaland, kuwaas oo si rasmi ah ugu biiray milatariga Soomaaliya. qaybihii hore ee jariiradda media ayaa daawanaysaan. ciidamo dheeraad ah ayaa caawa lagu daadiyey Dhuusamareeb iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya amar cusub ku soo rogtay. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo aad u hubeysan ku daadisay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud si ay u xaqiijiyaan ammaanka magaalada, iyadoo halkaas ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay khilaafka ka taagan doorashada Galmudug. ciidamada ayaa la dhigay wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah, iyadoo horey laamaha ammaanka u mamnuuceen in hub lagu dhex qaato magaalada marka laga reebo ciidamada ammaanka. saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb ayaa sidoo kale mamnuucay shirarka aysan ka warqabin ee lagu qabanayo hoteelada iyo magaalada qaybaheedii kale, iyadoo amarkan lagu wargeliyey milkiilayaasha hoteelka. waxaa sidoo kale milkiilayaasha hoteelada magaalada looga digay in tallaabo adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doono haddii hoteelada lagu qabto shirar aan ogaansho ka haysan laamaha ammaanka. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada ay kulamo uga socdaan madaxda hoggaanka ahlu sunna oo ka shiraya go'aanka ay ka qaadan lahaayeen jadwalka doorashada ee uu soo saaray guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug. warbaahinta jariiradda media ayaa nagala socotaan.
arrimo cusub ayaa ku soo kordhaya tii keentay xilka qaadis xeer ilaaliyihii qaranka Axmed Cali Daahir. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay xilka ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir isagoo xilkaas u magacaabay Suleymaan Maxamed Maxamuud. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sababtii keentay xilka qaadistiisa, taas oo inta badan dadka Soomaaliyeed dhinacyo badan u kala fasirteen. Maxamed Maxamuud Cadde oo ah wariye hore isla markaasna arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in Axmed Cali Daahir uu dowladda ka ilaalin waayay qaladaad qaanuun sida shaqadiisu ahayd, taasna ay horseeday in la bedelo. xeer ilaaliyihii qaranka Dr. Axmed Cali Daahir waa uu ku fashilmay in uu dowladda ku ilaaliyo qaanuunka oo aysan samaynin xadgudubyo, balse waxaa dhacay wax aan la filayn, kuwaas oo markii dambe sababay in maxkamad lala tiigsado xukuumadda iyo adduunyada ay ka yaabto qaladaadka qaanuuniga ah ee dalka ka dhacaya, ayuu yidhi Maxamed Cadde. dowladdu waxay samaysay xadgudubyo waaweyn oo dastuuri ah, waxaana loo baahnaa in waxyaabahaas kala taliyo kana soo horjeedo. sidoo kale waxaa jira kiisas badan oo dowladda ku furan sida dad la dilay, dad la is hortaagay. arrimahaas oo dhan waxay ahayd shaqadiisa inuu qaanuunka waafajiyo kana tala bixiyo, ayuu yidhi Maxamed Maxamuud Cadde. xilka qaadista xeer ilaaliyihii guud ee qaranka ayaa hadalhayn ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed, waxaana jira qoraallo kala duwan oo laisku dhaafsanayo internetka. dad badan ayaa aaminsan in arrintan ay saameyn weyn ku yeelan karto dacwadda kiiska badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya, inkastoo ay jiraan dad badan oo qaba inuusan saameyn ku yeelan doonin xilka qaadistiisa, maadaama qareennada u doodaya Soomaaliya ay weli sidoodii yihiin. warbaahinta jariirada media ayaa daawanaysaan. isku day lagu dili lahaa bin Salmaan oo horseeday dilka ilaaliyihii gaarka ahaa ee Boqor Salmaan. kadib dhimashadii Jenaraal Cabdulcasiis Al Fakham oo ahaa ilaaliyaha gaarka ah ee Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis, ayaa waxaa soo tirayo warbixino ku aadan qaabkii u dhacay dilkiisa. Al Fakham ayaa waxaa la sheegayaa inuusan ku dhiman rasaas ka dhacday gudaha magaalada Jidda kadib khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay Mamduuh Al Ali xilli uu ku sugnaa gurigiisa sida horey loo sheegay. xog cusub ayaa sheegaysay in lagu dhex dilay gudaha qasri lagu magacaabo Qasriga Nabadda sida ay qortay majalada Al Khaliij. waxaa sidoo kale soo shaac baxaysa in Al Fakham uu isku dayay in uu dilo Maxamed bin Salmaan kadib markii uu ka gudbay xayndaabkii hore ee ammaan ee bin Salmaan, taas oo markii dambe sababtay inay isku dhacaan ciidamada kooxda loo yaqaano Blackwater oo ah koox Maraykan ah oo ka shaqeysa ammaanka bin Salmaan isla markaasna sumcad xun. Al Fakham iyo Mamduuh Al Ali ayaa la sheegayaa inay xilligaas dileen ciidamada Blackwater ee ammaanka u qaabilsan amiirka boqortooyada, iyaga iyo 11 askari oo kale. calooshood u shaqaystayaasha Blackwater ayaa daqiiqadihii u dambeeyay ku guuleystay fashilinta dilka bin Salmaan kadib markii ay dileen Al Fakham iyo Al Ali, isla markaasna ay dhaawaceen saraakiil kale oo qorshahaasi kula jirtay sida uu qoray wargeyska Al Khaliij. amiirka boqortooyada wax dhibaato ah kama soo gaarin isku daygaas dil, laakiin dhawqa rasaasta ayaa ugu filnaa cabsiin, ayaa laga soo xigtay qof dhacdadan xog ogaal u ahaa. warbixinta cusub ee ku aadan dilka Jenaraal Cabdulcasiis Al Fakham ayaa shaki badan gelinaysa sax ahaanshaha qaabka rasmiga ah ee loo dilay, xilli ay soo baxayaan warbixino kale oo ku aadan qaabka loo dilay Al Fakham. wakaaladda wararka Sacuudiga ee Saudi Press Agency ayaa 30 Sebtembar sheegtay in Al Fakham uu dilay nin ay saaxiibo ahaayeen oo muran kala dhexeeyay xilli uu ku sugnaa gurigiisa magaalada Jidda. waxay sidoo kale sheegtay in qof kale oo Sacuudi ah iyo shaqaale u dhashay dalka Philippines lagu dhaawacay. sida ay tiri warbaahinta wakaaladda, qofkii dilay Al Fakham
iyo waxaa kadib dilay ciidamada ammaanka oo ku soo baxay dhacdadan iyadoo 5 askari ay ku dhaawacmeen dhacdadaas. tan iyo wixii markaas ka dambeeyay waxaa jiray shaki badan oo ku saabsan wararka dowladda iyadoo dad badan ay ku adkaatay inay rumaystaan. haatan qaybihii dambe ee wararka warbaahinta Jireeda Media ayaanu ku sii siqaynaa. xukuumadda Somaliland ayaa xabsiga u taxaabtay ku dhawaad 9 nin oo u dhashay Imaaraadka Carabta. xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi ayaa xabsiga u taxaabtay rag u dhashay dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo ka dhoofi rabay garoonka diyaaradaha ee Cigaal. nimankan oo tiradoodu gaadhaysa ilaa 9 nin ayaa la sheegayaa in ciidamada booliiska Somaliland ay xireen xilli ay u dhoofayeen garoonka Hargeysa kuwaas oo ku sii wajahnaa dalkooda. 9 nin ee u dhashay Imaaraadka ayaa waxay gudaha Somaliland kaga ugaarsan jireen si sharci darro ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Somaliland. Naasir Xuseen agaasimaha duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Somaliland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadu xireen 9 nin ee u dhashay waddankaas Imaaraadka kadib markii la ogaaday inay si sharci darro ah uga ugaarsan jireen deegaanada Somaliland. agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddoodu ay sharciga marsiin doonto nimankaasi oo la sheegay in dhowaan ku sugnaayeen deegaan lagu magacaabo Sabawanaag oo ay ka fulinayeen howlahooda ugaarsi. mana aha markii ugu horeysay xukuumadda Somaliland ee Muuse Biixi oo hogaaminaya xabsiga dhigto ajaanib iyadoona dhowr jeer oo horena ay soo saartay awaamiir ay ku furayso ajaanibta ku sugan deegaanadeeda in ay isi soo diiwaan geliyaan. guud ahaan saaxiibayaal waxaa halkaas inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen Jireeda Media. waxaa naga xasuusinaa haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay halkaan aan kusoo gudbino.